maxay diintu ay ka qabtaa dadka isqarxinaya ee leh shahaado ayaan qaadanaynaa waxaan su'aashan weydiinaa fadiilada sheekh cabdi naasir bismillaahir rahmaanir rahiim dadka isqarxinaya oranaya shahaado ayaan qaadanaynaa waxaan leenahay ninkaas waa qaatil nafsihi qofkii isqarxiyay waa qof naftiisii dilay arrintaasna wax bannaan ma waa xaaraan ilaahayna subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiinna ha dilina buu yihi alla subxaanahu wa tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna halaaga ku ridina marka hadaf kasta ha lahaado niyadaydu waa wacan tahay ficilkan aad samaynaysaa ka xoog badan ficil dil ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xarimay qofku qayrkii inuu dilo oo muslim ah iyo wixii kale gaale macsuum ah iyo naftiisa inuu dilo intuba isku mid bay noqonayaan wax bannaan maaha weliba rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay axaadiida ka sugan qofkii naftiisa dila maalinta qiyaamaha naarta gudaheeda ayaa wuxuu isku dilay ayuu isla dhacaya hadduu middi isku dilay middadii iskula dhacaya naarta gudaheeda hadduu meel dheer iska soo tuuray ka soo shalwaday wuxuu samaynayaa meel baa laga tuuraya naarta gudaheeda ah hadduu sun cabbay sun baa maxaan ku lagu siinaya naarta gudaheeda waxa weeye arrintaasi waa xaaraan weliba waxaa dhacaysa intuu isqarxiyo inuu dad badan oo muslimiin ah oo laga yaabo inay markaa ama masaajid ku jiraan ama masaajid ka soo baxeen ama sooman yihiin ama afura sugayaan inuu isku qarxiyo oo intaasoo dembi wax xambaarto dad muslim ah oo majmuuca iska dhan ah oo laga yaabo 30-20 intaasoo khalqi ah buu gumaadaya isagoo leh shahaadan doonaya shahaadan rabaa buu ku leeyahay muslimkii Soomaalina waa gumaaday waa laayay arrintaas marka wax sahlan maaha waa jaraa'imta waaweyn bay ka mid tahay oo loo baahan yahay marka in la iska wacyigeliyo oo daayartu ay fahmaan arrintani arrin sharci ku bannaan inaan ahayn waxa kale oo marka qaarkood ay koornayeen shahaadan doonayeen horta shahaadan isweydiinay shahaadooy yaa ku bixiya ma ilaahay baa shahaada bixiya shahaadoy ma waxaa tahay ninkii safarka gaariga raaciyay kursiga ay si qawcid ma fuuli kartaa ana kareystay kursiga shahaadu ma wax la siixdhaa ninku markuu doono shahaad iska qaataa mise waa shay ilaahay bixiyo jawaabtu waa shay ilaahay bixiyo shahaadadu quraanka markaad akhrido aayaadka ka waramaya shahaadada qofka la siinayo ficil mabni lmajhuula loo bineeyey waa qof la dilo cid kale gacanta ku dishay walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illahi yani ha u malaynin dadka loo dilay jidka ilaahay inay dhinteen ha u malaynin cid kale dilaysa ninkan isaga isqarxi isaga naftiisa dilay cid hadaf kastaba ha lahaado mar hadduu isagu naftiisa dilay oo marka hore ilaahu isagu kala go'o markuu isqarxinayo oo minada isku xidha baaruuda gacantiisiyo baaruudu ku xidhan tahay iyo madaxiisiyo duulay iyo waxaasaa wax laynaya isagu mar ruu tegey soo ma aragtid qur-aankuna wuxuu ka warramaya ninkan shahaada la siinayo waa qof isagu dagaal intuu galay xaq ah oo jihaad ah gaalad iyo cadowgii ay gacantooda ku dileen ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illah fayaqtuluuna wayuqtaluun fayaqtuluuna way laynayaan wayuqtaluuna waa la laynayaan ma isagu inuu isdilay waa la laynaya waa la dilaya oo cid kaloo gaala baa dilaysa shahaadataas saasaa lagu qaataa saasaa lagu helaa waxaanu leenahay marka arrintaasi arrin bannaan maaha mafaasid aad u fara badan ayaa ka soo baxay naftiisii buu dilay jaraa'imkana waa galay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha waghadiba allahu calayh walacana baa la yidhi subxaana wa tacaala oo waciidka ku soo array muslimka hadlaynayso ay samaynayaan waxaa kaloo soo gelaya munshi'aadka iyo dhismayowga iyo ummadda xoolaheedu ku halaagsamayaan oo aan la tira koobi karay argagixinta iyo baqdinta laga irdhoobay masaajidii la soo galo meelaha qaarkood oo aad la socotaan dadkoo dhan bay fahansan yihiin oo masaajidii aan geli karayn waayo waxa weeye jidka ma lagu tooganaya ma lagu dilaya ma lagu qarxinaya arrimahaasoo dhan waxay keenayaan waa munkar ficilkaa la samaynayaa dhibaato badanna waa keenay waa xaaraan baynu leenahay waa ka waaninaynaa dadka arrintaa ku hawlan inay ilaahay subxaana wa tacala uga toobad keenaan wallahu subxana wa tacala